shabaabkii ugu badnaa ayaa gudaha u galay gobolka Galgaduud ka gadaal markii ay ka soo tallaabeen xadka gobolkaasi uu la wadaago gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya qaate ayay kala joogaan waxayna qarka u saaran yihiin guud ahaanba inay si toos ah ay u kala guraan. soo dhawaada hadday tahay markaa kugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saarno la garan muuqaalkan waad ku maasan tahay soo booqashadaada aanu ku hormarno. wararka laga helayo Galgaduud waxa ay ku waramayaan in dhaqdhaqaaqiyo xoogan oo ciidan halkaasi laga dareemayo ka gadaal markii xubnihii ugu badnaa oo nabadiidka ka tirsanay ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Hiiraan. waxaa la tilmaamayaa in shabaabku inay ka duseen gobolka Shabeellada Dhexe inta ugu badan isla markaana deegaano dhowr ah oo gobolkaasi ka tirsan ay isku aruurinayeen maalmihii ugu dambeeyay. wararku waxa ay tilmaamayaan in maleeshiyaad gaaraya ilaa iyo 1000 askari oo markaasi shabaabka ay ka dhaqaaqeen magaalada Masjid Cali Guduud halkaasi oo ay isku urursanayeen. wararku waxa ay tilmaamayaan inay qarka u saaran yihiin degmada Ceeldheer halkaasi oo shabaabku laga saaray oo ay kadib markii dagaal ay ku wajaheen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. wararku waxa ay tilmaamayaan hadda in halkaasi laga dareemayo xisad xoogan oo u dhaxaysa al-shabaabkii duulaanka ku ahaa deegaankaasi iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida oo halkaasi ku sugan. dhaqdhaqaaqiyo ciidan ayaana la dareemaya. wararku waxa ay tilmaamayaan in ciidamada qalabka sida qudhoodu ay helayaan dabaabaad dagaal iyo sidoo kale hub iyo saanad ciidan oo uga imanaya dhanka Galmudug. waxaana la tilmaamayaa in halkaasi ay mangal tahay saacadaha soo aadan in la isku farasaaro maadaama halkaasi hub urursi xoogan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqiyo ciidan laga dareemayo. tani ayaa timid ka gadaal maalinimadii Jimcaha oo warar ay ku ekeeyeen al-shabaab degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. waxaana la tilmaamayaa hadda xisadu inay waji kala yeelatay ka gadaal markii la sheegay in shabaabkii ugu badnaa ay halkaasi u goosteen isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay isku aruursanayeen Aadan Yabaal iyo Masjid Cali Guduud. halkaas sidoo kalena Moqokori ay ka baxeen qaybo kale. waxaana la tilmaamayaa in dhammaantood ay isugu tagayaan magaalada Ceeldheer oo ay u arkaan inay tahay magaalo istiraatiiji ah isla markaana waxa ay doonayaan inay dagaal ku wajahaan si ay uga saaraan ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi ku sugan. ciidamada dowladda ayaa Jimcihii waxa ay dagaal xoogan la galeen kooxda al-shabaab oo weerar xoogan ku soo qaaday halkaasi ka gadaal markii weerar ku bilowday qaraxyo iyo bambaanooyin ay ku qaadeen goob ay markaasi ciidamada ku sugnaayeen. waxaana la tilmaamayaa in qasaarooyin la xadlay halkaasi uu geestay dagaalkaasi ka gadaal weerarkaasi. waxaana la tilmaamayaa hadda xaaladdu inay degan tahay ka gadaal dagaalkii halkaasi ka dhacay maalinimadii Jimcada ahayd. hadda waxaa la tilmaamayaa ciidamada qalabka sida inay is urursanayaan qudhoodu isla markaana ay doonayaan inay iska difaacaan weerarka al-shabaab ay qorsheynayaan in halkaasi ay ku qaadaan. waxaana hayla sirdoon oo ka tirsan dowladda federaalku ay ku waramayaan in xogtaasi la helay isla markaana diyaaradaha sida qumaatiga u duulay ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuba Africom ay ka qayb qaadanayaan dagaalka oo ay dhinaca cirka ku sahminayaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. qorshuhu waxa uu yahay in shabaabku laga saaro deegaanada dhowrka ee markaasi ay uga sugan yihiin Galgaduud. sida wararka qaar ay la helayo ay tilmaamayaan dowladuna waxa ay qorsheynaysaa inay ambaqaado wejiga labaad ee dagaal toos ah oo al-shabaab lala gelayo isla markaana deegaano dhowr ah oo ka tirsan Galgaduud lagu gaarayo halkaasi oo shabaabku ay isku urursanayaan. hadda waxaana la tilmaamayaa in hadda dhinacyo kala duwan ay qabanqaabinayaan qorshaha dagaalkan. wasiirka difaaca iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayay wararku tilmaamayaan in jiida hore ee dagaalku ay booqanayaan ka gadaal markii shir xoogan oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaha ciidamada xoogga iyo sidoo kale saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga uu kulan ku dhex maray gudaha wasaaraddaasi. waxaana la tilmaamayaa in lagu gorfeeyo kulankaasi sida lagu wajihi kara dagaal xoogan oo markaasi lagu qaadayo al-shabaab. wararkan sidoo kale waxa ay ku waramayaan in wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha xoogga ay iyagu tagayaan magaalada Ceeldheer halkaasi oo ay ka hogaaminayaan dagaalka al-shabaab lagu wajahayo ka gadaal xoga sirdoon oo la helay oo ay ku qorsheynayaan shabaabku in halkaasi weerar ay uga qaadaan. waxaana la tilmaamayaa hadda in la qorsheeyo guud ahaanba duulaan dhowr weji leh oo lagu qaadayo deegaanada markaasi ay ka soo abaabulayaan weerarada si markaasi ay u wajahaan dagaal xoogan oo ay kala hortagayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyadu waxa ay noqonayeen kuwa marba markii kasii dambaysa wejiyo kala duwan yeelanayay. waxaase la tilmaamayaa hadda in uu xoogaysan karo dagaalka isla markaana shabaabku mar kale ay dib isu soo abaabuleen. dowladdu waxa ay doonaysaa inay hadda mar kale dagaalku ay ka xoojiso dhanka iyo Galmudug oo horaantii sanadii
23 dagaal xoogani halkaasi ay ku qaaday dowladda isla markaana deegaano dhowr ah oo shabaabku ay ku sugnaayeen laga saaray walow markii dambe shabaabku ay dib u qabsadeen. waxaase jira hadda qorshe kale oo weji labaad oo ay dowladdu qorsheynaysa inay weeraro uga qaado deegaanada markaasi shabaabka ay ku sugan yihiin si markaasi ay uga faramaroojiso. maalmihii ugu dambeeyeyna wasaaraddu waxa ay ka shaqaynayso wasaaradda difaaca dalka isla markaana ay kala hadlaysa saraakiisha ciidamada qorshe nidaamsan oo markaasi lagu qaadayo weeraro xoogan oo markaasi aan u muuqanayn kuwa ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana lagu qaadayo goobaha shabaabku ay ku sugan yihiin. waxaana lasla meeldhigay guud ahaanba in duulaan saxa lagu qaado goobaha shabaabku ay ku sugan yihiin si markaasi looga saaro. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dagaalkan uu yahay mid xoogan isla markaana uu noqonayo mid la dhammaystiri doono isla markaana looga saari doono deegaanada iyo degmooyinka ay uga harsan yihiin gudaha dalka lama soo oga xilliga uu bilaaban doono. markana Masar iyo Soomaaliya wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in Masaarida iyo Soomaaliya ay kala joogaan meeshii ugu dambeysay ka gadaal markii madaxweynaha Soomaaliya uu qadka telefoonka kula soo hadlay dhigiisa wadankaasi Masaarida Cabdulfataax al-Siisi. waxaana la tilmaamayaa dhinacyadu inay kala boodeen isla markaana ay ku heshiin waayeen qorshayaal dhowr ah oo ay hore isla meel dhigeen oo ay ka mid tahay keenitaanka ciidamada Masaarida ee gudaha Soomaaliya. waxaa arrintu kala fogeeyay ka gadaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay furitaanka biyo-xireenka webiga Nile oo ay dowladda federaalka Soomaaliya iyadu goobjoog ka ahayd. waxaana la tilmaamayaa tallaabadaasi in Masaaridu ay ka carootay. waxaana wararka la helayo ay tilmaamayaan in dowladda Turkigu ay garwadeyn ka ahayd heshiiska qadka telefoonka ee markaasi lagu xiriirinayo madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana la tilmaamayaa in dhammaantood ay guul dareysteen isku dayadii la sameeyey si xal waara looga gaaro khilaafka dhowaangalka ee markaasi ka dhex xaroosan madaxda dowladaha Masaarida iyo Soomaaliya. waxaana la tilmaamayaa hadda xiisadu inay cirka isku sii shareertay. dowladda Masar waxa ay go'aan ka gaartay guud ahaanba keenitaankeeda ciidamada gudaha Soomaaliya walow ay dan xoogane uga jirtay. haddana waxaa la tilmaamayaa in xaaladdu ay weji kala yeelatay ka gadaal dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo muuqatay guud ahaanba xarika jarka webiga Nile oo ay isku haystaan dowladaha Itoobiya iyo Masar isla markaana dowladda Itoobiya ay buuxisay wejiga afraad ee biyo-xireenkaasi isla markaana waxa ay doonaysaa inay ka dhaliso awood koronto oo heerkeeda sarreeya isla markaana laga isticmaali karo guud ahaanba wadamada bariga Afrika. hadda waxaa la tilmaamayaa xaaladdu inay dhinacyo kala duwan yeelanayso. siyaasiyiin mucaaradahi ayaana la tilmaamayaa siyaabooyin kala duwan qorshahan ay uga soo biirayaan. dowladda wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaana la tilmaamayaa in qorshahan ay ku soo biirtay isla markaana waxa ay doonaysaa inay kala fogeysa dhinacyada dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Masaarida. dhanka Masar ayaana la tilmaamayaa in qadka telefoonka ay kula hadleen saraakiil ka socota dowladda wadankaasi isutaga Imaaraadka Carabta si dab ay uga sii shidaan qorshaha kala fogeynta labada dowladood. dowladda Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba aysan doonayn inay bixiso guud ahaanba isla markaana ay meesha ka saarto dowladda Masaarida iyo imaanshiyaha ciidamadeeda gudaha Soomaaliya. balse Cabdulfataax al-Siisi ayaa la tilmaamayaa in isaga uu go'aansaday ka gadaal warar aanan markaasi u bogin oo markaasi ka soo yeera madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu ka jeediyay furitaanka biyo-xireenka webiga Nile kuwaasi oo guud ahaanba Masaaridu ay siyaabooyin kala duwan u fasirteen. waxaana lagu daawacay wargeysyada ka soo baxa gudaha wadankaasi qoraallo xoogan oo markaasi lagu daleecaynayo dowladda Soomaaliya iyo garabkii dowladda Masaaridu ay u muujisay xilligii ay hayeen Abiy Ahmed iyo dowladdiisu. waxaana la tilmaamayaa isla markaana ay tilmaamayaan falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya inay guud ahaanba ay ku abaaldhacday dowladda Masaaridu ka gadaal wixii dhex maray iyada iyo Itoobiya xilligii ay dowladda federaalka Soomaaliya isku haysteen badda Soomaaliya oo ay dowladda Itoobiya soo hamisay. waxaana la tilmaamayaa hadda xiisada labada dal inay marayso meeshii ugu xumayd. waxaana maangala in guud ahaanba dhinacyadu ay sii kala fogaadaan. dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa guud ahaanba dowladda Masar ay kala shaqaynaysaa in xal waara laga gaaro. waxaana la tilmaamayaa in xal u helidda khilaafkaasi dowladda wadankaasi Turkigu ay si weyn uga shaqaynayso walow dhinacyadu ay isku soo dhoween. haddana waxaa la tilmaamayaa inay raadinaysa xalka ugu habboon ee laga gaari kara khilaafka ka dhex xoogan labada dowladood oo si weyn u xoogaysta. lama soo oga halka uu saldhigan doono.